مساجد جمعه لبوحه وقال لو تكنايو أي نن قروح بدن أو در آذو قروح بدن ستة أي صفقه ركوتو كذي وكسوك عي علماء دي بقوي مدي وحبودك تقول شيء شيخ إمام كان ميكروفون قاتو حيري نكان ولكن إن الدول تاجن وحولها جماعة مسلمين تو أولاد إلهي هاي ويديان بقولي ادعي يقولي والله ادعي ما شاء الله هذا جمعيه كانوا سوك عي دعاء دي بقول شيكتي والله ادعي هذا جمعيه سدعات بو سوك عي دعاء دي بقول شيكتي والله ادعي من علماء دي كمدا فكري وياري صفر يسبولو وعر امس هدمر بورستي بوكيدي مركز ما بقورسن با marka warama ninkaas saxba ducadiisaasi ma soconaysaa ducadaasi majmacaadan ee awliyadii culimada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelan bal sheeg khilaaf sunna sunnadii ilaahiyadii uu khilaafsan yahay dariiqadii loo maraya saxda ma marin marka uu soo kacay hay'adiisa quruxdiisa waxa la moodayaa nin afar dumar leh oo wali u banaan ku tixin laakiin markuu yiri maba guursanba ayaa la yiri war number ba ka qaldane horta soo guurso horta numberkaas ka soo sax numberka ilaahay bari tayib hadana jamciini kulu soo kacay ninkii xaaladiisa ogaay xawaasha ka qaadayba ayaa yiri war naga fadhiiso wariya intuu imaanba meeshii buu fadhiisiyay culamadii baa ku tiri war waa ninkii ducada doonaya khayrka badnaa duca doonkii maxaad u fadhiisay baa laga yiri markaas uu war number ba ka qadla buu ninka maskaxdu wax ka yar qaba saad ku garatay oo dama guursan buu yiri eemka kulligeen dadka maanta muslimiintu in muslimiintu a'azza an-nas dadka adduunyada ugu sharaf badan inay noqdaan ma jecelahay mise ma jeclin balki jecelo gacanta taag laakiin dariiqii muslimku aziz ku noqonayay inaan qaadno diyaar ma u nahay مونهي ومنهم بصدق يجيرك ما حاجة دحية بس أرجو ما قد دحية سوما جيرك ما سكوي مدي ويتشابهن وعيد عليهم حبايب والله بصدق طبعا لباتن والله ندمية سنو بدنا كطلب حيا جير بايري مركز الرأي في عبد سوى جديو وحيري ومثال يعني كورتنا أورت الله سورة سوما تقالان جرس قيل الله سورة حلا قاضي بصدق قورتي ده الله سورة يقول سي مركز سوسع وتشنقد الله مغلوق دنا الله بدونته مركز جير كودن بايدي والله فكرة داسوا فكرة في عن ترى في عن بسوجي دي ونسكر عني مركز جير كالشيخ ويقول هنا بايدي وحقاقة يا سوسع يقول سوسع ما يده نبي أبو سليا لأن المسلمين جدا ما أنت إني دين تدقيستان إني دين نرجعنا كموقته إني مسلمين أعز الناس إني نقضان إني وجعلها لكن مركز لقار دين تدقال كيجي نيوال بق غير كدمو قشنا يا مركبة وروح بق غير كدمها قشنا غير كهرة قشو يا وديار غير كولينو قليو إن شاء الله ده هذا الله إني غفر حيو الله إني غفر حيو هاي نوبل لنا دين تدقال كيجي إن الوقت كبحنو تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك تفرغ لعبادتي حديث القدسي في تفسير ابن كثير بكشاغي في شرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي باكل تفرغ لعبادتي وارطاعت ديدا عبادة ديدا دين تيدا وقت وصل إلى إلهي كل ابن آدم هذا الدين ده وقت وصل يسمح هذا ليس مركا أملأ صدرك غنى بإلهي لابتان أن يقولك أقب حين بإلهي هضم هل كان لقد نقضى غني غنى النفس بقصي ويان بايدا نقضى بولي بإلهي كل إيهي وأسد فقرك الباب الفقر يقولون أنا كضى بولي بإلهي وكاحد إياه وإلا تفعل هذا العبادة ديدا هي طاعة ديدا هي دين تيدا هذا وقت السين وإذا بإلهي كل إيهي بايدا أدنا كضى بولي مينو
gacantaadana mashquul baan ka dhiganaa baa ilaahay yidhi mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka 24 saaca mashquul baan kaa dhigi baa ilaahay kaa yidhi faqrigana kaa xidhi mayno waa laba cuquubo ummadda ku dhacday maanta kay faqiirkay waxba haysan markay jamaacaddu u tagtay tiraada ilaahay dartii noo raac wuxuu leeyahay nima haleelayo waxba ma haysidba mashquul baan hay buu ku odhan waxba mama haysidba hadda maqaayad buu fadhiyaa duhurkiibuu qaab u fadhiista qaab baabuurta dariiqa la eryanaya buu kala mid saa u eegaya bbcduu geynaya adaacado dad waalwaalan ay leeyihiinoo baalkan maanta laga soo saarayna kolba mid buu gashanaya waxa caalamka ka dhacay uu la socdaa aakhiradiisina war uma hayo markay jamaacaddu u tagtay tiraadana masjidka noo raac in yar ilaahay hadalkiisa nala dhegayso mashquul baan ahoo nima haleelayo maxaa mashquul ku tahay waxaad mashquul ku tahay cuquba kugu dhacda mashquuliyad la yidhahdo kii maalqabeenka ahaana ee haystay 50 kun oo sano 50 sano ama 100 sano hadduu hurdo wuxuu cuni lahaa isagoo baanka ay ugu jirto haddana faqri buu ka baqaya ma dhacdo isagoo 50 sano ama 100 sano quudkiisa ilaahay meel uu saaro haysta haddaad tiraado ilaahay dartii u bax oo masjidka wax gasho oo madrasada wax gasho oo macallin qur'aan maaragtay nafaqadiisa naga bixi haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay waxba ma haystaba isagana waxaa ku dhacay cuquubadee walam asudda faqraka albaabada faqriga kaa xidhi mayna baa ilaahay yidhi hadda diintan iyo dacwadda iyo cilmiga iyo masaajidda sidii ummadda loogu soo xidhi lahaa aad waktigaaga u bixini weydo labadaa cuquuba ku dhacaysa qofka mashquul 24 saaca mashquul baa laga dhigi 24 saacana waa kii baahan labadaa cuquuba ilaahay inuu naga fiida ma doonaysaan hada allah inuu ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo qof walba halkan fadhiya kurbada saaran ilaahu adiga oga halku kurbaysay kurbada ilaahu ka qaad dhalinyarada wax baranaysan ilaahu tacliintooda ilaahu barakee culimmadana ilaahu cilmigooga cilmi naafic ilaahu ka yeel dalkeennan dowladeenna dadkeenna shacabkeenna ilaahu diinta ku wadanaya ilaahu ka yeel ilaahu kuwa masaajidda camal ilaahu naga yeel kuwa diinta kor u qaada ilaahu naga yeel wixii dhib nagula soo maqana dhibta gudahooda ilaahu ku celi wixii khayr noo soo wadana khayrka ilaahu ugu kaalmee muslimiinta adduunka meel kastay joogaan ilaahu midnimadooda iyo muwaafaqadooda ilaahu soo celi hidaayad muslimiinta ilaahu toobad iyo tagyiir alacmaal ku galladayso gaaladana ilaahu soo hadee gaalada intii hidaayadda aad ugu tala gasha adaawoga ilaahu soo hadee dadkeenna wixii dibadda joogan halka joogan ilaahu ku ilaali kuwa diintaada iyo dadaalka diinta daryeel ilaahu ka yeel allahuma inaa nasaluka xusna alkhaatima وشهادة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد